ولا سمير عن. السلام عليكم والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بيني وبينها إن شاء الله ربينا دي جاي سرطان waxay tahay ilmaha xilliga ugu fiican ee la bari karo inuu kaligiis seexdo waa xilima ama sintii su'aasha ma weydiin Cabdicasiis ma maqlaysay codka aniga xogaa iga yar ma garanayo. Ilmaha waqtiga uu la qaban karo maxay? si fiican baan ustaad nusu ku maqlay. Samiira maxay inuu su'aasha maxay tahay Samiiro codkaaga si fiican looma maqlayn. ilmaha xilliga ugu fiican ee la bari karo inuu kaligiis seexdo yacni ilmaha xilliga ugu fiican oo la bari karo maxay? inuu kaligiis seexdo kaligiis seexdo يعني seexdo kaligiis aad maxaa ka wadaa qol cidlaa seexdaa يعني دي أما إنه كله ده وحنا استعمار أو شراء سنة يا والله ببلاد مركز كليجي أو كلام سيحان كرو وهذا إيه كقاعد كلام مركز تكني أو كلام وكان حلقي نقطه برارو جاي مركز قبل كله بريكرا ما إنه كليجي سيحوا معناها إذا قلت جوني سيحسه مثل إلى أدوان اللي ما يعني إنه كليجي سيحوا كليجي ما سرير بكل دقيقة أو سرير بكل ساعة حول ميلو قارة مالها مدير أساسا تكسود إلا أنت بركوا بشيء wuxuuha aad buu hurdayraa markaas sidii aan ugu seexan jirin de iskula seexan jirin buu la qabsado ku weynaado mogte marka sariirta weyn baa ku sariirta weyn baa ku seexaysaa barkimooyin baa dhinacyada ka dhigtaa ilaa yaraantiisa may maxay hayday furash buu ila seexdaa laakiin keligii maba seexanay hadday duhur tahay hadday habeen tahay labadooda sax ya marka su'aasha ma baahna isku day macnaha xataa duurka waa inaad la soo seexato markuu gama soo kama kici kartid ma tegi kartid toos kacaya horuu ka kacaya kaa dareemaya saq dhexeeda hadday tahay ninka salaada subax kale markaan u kacayo caadiga kasoo daba kacay inta tukanayo uu iska soo jeedaa markaan tukano kadib baan ku yar celiyaa hurdadii haye marka taasoo kale ma baahna maalintiina sidee kugu yahay maalintii maalintii sidee kugu yahay maalintii waa isla taasoo kale markuba ay soo jeedaan ka waraa wuu ku daba socdaa intaa kaama haro anigu seexiye mooye ma seexanayn maya waxaan ka wadaa markaan hurda jirin uu soo jeedo muxuu sameeyaa macnaha qolka fadhiga oo kale haddaa uga soo baxdo ama jikada oo kale meeshii aad taagantahay wuu taagan yahay adigu buu ku daba galaa base wuu kaa haraa oo waa jiraan 10 daqiiqo uu kaa maqan yahay meeshii aan joogo un joogaya marka markii aan kaca ugu dambeynaysa hurdada okay hurdada waa fahmay hurdada waa waxaan rabaa inaan kala saaro hurdada waan fahmay maalintii markaan hurda jirin uusan hurdin oo meelihiisa ciyaarayo ma ilmo ku ilaashanayo oo meeshii adi aad taagan tahay la taaganba mase waa ilmo marmar adduunkiisaa soo baana oo 10 daqiiqo iyo markaa maqan 5 daqiiqo iyo mid badanka saasoo kale laakiin gurigoo kale marka dad iska joogaan in iska ciyaarayo uu iskala maqayn dadkaas haye dadkaasu aadaadaa laakiin markay noqoto ayaa cid kaloo seexinaysa ama isagoo agtiga hurdo mooye keligii buuna seexanayna sidee u seexisaa markaa seexinayso ma laabtaada ooyadaada ku jiibsadaa ma taabataa ma tuntuntaa maxaa samaysaa gala iisu seeya soo gaba weli imika waxaan siiyaa naaskaan siiyaa markaa naaska ma ku seexiyo naaska ku galaa waa hagaag samiiray hurdada ilmaha waa dhaqan waa caado ilmo kasta wixii la baro oo uu caadaysto weeye hadda waqtiga uu joogo sanad iyo 2 bilood waxaa la rabaa inuu gooni kaa seexdo may fahamta weliba dadka qaarkiis waxay ku guulaystaan inay qol gaara seexiyaan oo xoolkiisa meel fiican oo maaragtay sariir uusan ka dhacayn inta la saaro la yar tuntuma loo soo heeso laakiin
ustaad waxa dhacday wuu hurdo yar yahay xitaa markuu yaraa xoog buu hurdo yaraa 20 daqiiqo hurdaya 10 daqiiqo waxaan ahayn buu hurdaya 20 daqiiqo markuu hurdo muxuu samayn awo in yar markuu hurdo uu soo kacaya laakiin markii aad dabka ku qabtaa maa naaska iyo hurdo dheer ku kale horta waxa waa caado ka socoto weeye uu kugu dhegan yahay dhaqan ah tan kale midbaa arrin baa jirta waalidku loo baahan yahay inuu maaragtay uu og yahay muudgal ee samiiroy waa su-aashaada waan fahmay waan ku jawaabaya arrin waxaa jirta waalidka loo baahan yahay inay ku baraarugaan ilmaha qaabka uu u shaqeeyo maskaxdiisa markuu yar yahay dad badan oo baaritaanna sameeyey waxay qabaan 3 sano oo u horeysa ilmaha marka uu isagu shakhsiyadiisa eego nafsadiisa wuxuu ilmuhu aaminsan yahay hana muudgal ilmuhu wuxuu aaminsan yahay inuu yahay xubin ka mid ah hooyada sida inuu gacanteedoo kale yahay wax iyada ku dhegan oo ku callaqan oo jirkeeda ka mid ah inuu yahay buu qabaa shakhsiyad u gaar ah inuu yahay qof keligiis meel taagan sida hadda inagu aynu dareemayno ma dareemo marka waxaan arkay baaritaano ay sameeyaan waxay sameeyaan waxaan malaynayaa naag hindiyada baa teoriyada noocaasa soo saartay 3 sano bay tiraahdaa buu ilmuhu personalitygiisa inuu shakhsi person gaara yahay uu dareemaa waa guud ahaan ilmo ka yar dareemaana wuu jiraa marka waxay ku tijaabiyeen halkan wejiga meesha hindidu maaragtay bahashan guduudan ku dhajisato oo xamuurad oo guduudka ah nabar barta yar oo guduudka ah bay meesha kaga dhajinayaan wax u eg oo goobaaba ah marka muraayad baa ilmaha la horgeynayaa caruuro badan bay testiga ku samaynayaan muraayadda marka la horgeeyo ilmaha markuu 3 jirka yahay wuu arki in wax jirkiisa kusoo siyaadeen oo wejiga wax ka saaran yihiin kadib wuu iska qaadaya ilmana iska qaadi maayo wejigiisi wuu arkaa laakiin waxan ku siyaadada ah ma arkaayo bay yiraahdaan wallahu aclam wax ka runa lama yaqaan laakiin arrinta ah in ilmuhu uu hooyada ku callaqan yahay oo psychologically aaminsan yahay inuu iyada qayb ka mida yahay waa wax cad taa waxaa caddayn u ah ilmaha marka aynu ka tagno hooyadu ka tagto waa kan ooya oo aad u qaracma oo aan ogolayn inay ka tagto oo meel ka aado sanad markuu jiro oo kaleeto hooyooyinku waa ka dhuuntaan badanaa dhuumashaduse wax fiican maaha in laga dhuunto waxba taa hadda ku dheeraa maayo arrinkaa marka haddii kala go-la'aanta ah oo ilmaha iyo hooyada u dhexeeya oo ilmuhu isu haysto inuu iyada ka mid yahayda ah haddii waalidku uu quudiyo arrinkaa oo quudiyo waxaan ka wadaa uu xoojiyo sida hadda samiira ay samaysay naaskii ilmuhu muddo sanada nuugayey caado aad uga dhigto inaad naaska ku seexiso uusan naaska la'aantii seexan inuu urtaada iyo kulaylkaaga mar walba dareemayo fiiri waxa cajiibka ah waxa weeye waxaad caddaysay si kastoo hurda u hayso hadduu gamo oo aad kacdo adoo xataa sirqanta iska ilaalinaya inuu markaba kaa daba kacaayo fiiri cajiibka halkaas iban hurdadiibu wuxuu ku jiraa waardiye hurdadii isagoo ku jira wuxuu hayaa waardiye culus weliga haddaad u kacdo waxaa tiri wuu iga soo daba kacaya markaba maaragtay suu ku dareemaba wuu dareemaya inaad meeshii ka dhaqaaqday oo urtaadii iyo kulaylkaagii yaa maskaxdiisii aad ugu callaqanoo ugu xiran marka waxaa la rabaa inaa hadda si tartiiba aad u bilowdo bal naaskaa marka horeeto joojinaysaa ku seexiskiisa waa inuu naas la'aan seexdo naaska iska wad haddaad adigu go'aankaas maaragtay qaadatay inaad nuujiso laakiin waxaad samaynaysaa waqtigii hurdada inaad tuntunto ama u heesto dhabna aadan ku qaban uu furaashkiisa joogo ilmaha qaarkood marka waxay sameeyaan marka sidaa hooyadu samayso galgalad siyaadaa buu bilaabayaa iyano intuu
maqaarka sare kor u qaado uu furaashka bab isku siiyo maleeyahay taa maleeyahay ma sameeyaa furaashka ma isku dhuftaa markuu sii seexanayo gama raadinayo samiro soo qabso ها وليه عادة uu istuurayo xoog aad isleedahay maxaa maqalal baa ku dhacay ها وليه ku aragtay ya ها indhahana wuxuugaa yar cadcadaynayo isagoo gamay oo 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo gamacsan mararka qaarkood bab ma iska siiya ها ya ها وليه ها bal noo sharax hadde ha hadhiina see u sameeyaa macnaa muxuu sameeyaa see ku timaadaa marxaladaas يا sidee ku timaadaa sidee ما مركون وفراش كسكت فيه ha istuuriddu sidee weye istuuridda noo sharax ma raba inaan afka kuu geliyo دي وكله يسكت وري علشان دي يا وكله يسكت وري يا ma isrogidda caadiga ah oo dadku isrogaa mase waa istuurid sida aan u sharaxaya bab ها تا شيء كسلو تركي سانو فهم waa taan sheegaya soo ma ها okay marka aa kacdana saas oo kaleeto sidii wax sasay soo booraya indhaha kala qaadaya ها ya ها haye uu ku yar noqonayaa hadduu arko inaad dhaqaaqdina waaba ka boodaya hurdadii ها لفتر كده وصار شيء كده fiiri arrintan waxa u sababa adaa waxaad samaysay callaqnaantii uu ilmuhu hooyada ku callaqnaabaad xoog u quudisay oo waxaad macnaha mar walba inuu ku dhinac hurdo oo xabadka ah kugu hayo u dudhowdahay oo ama gacantaadu saarantaho taabanayso maskaxdiisaa marka halkaas rikoor garaysay marka iban isagoo maskaxdeennu ma seexato maskaxda qayba aan seexan baa jira isagoo hurda baa misna maskaxdii qaab riye ah kuula socotaa marka si tartiiba waxaa la rabaa inaad samayso wixii hadda cilmiyan waad fahamtay waxa u sababka ah adaa marka hadda waxaa lagaa rabaa inaad bilowdo inaadan tusaale ahaan naaska ka joojiso caadi u seexiso tuntunto kadib tijaabiso fariisato agtiisa yar sugto goortaad dhaqaaq yar ka dareento gacantaada dhabarkiisa taabsiiso seexo ku tiraahdo markaad saa u taabato marka horeto 2-3 daqiiqo ku hayso kadib tartiib uga qaado yar sugto dhaqaaq markaad ka dareento misle gacanta ku celiso kadib markaas aad tartiib u yarayso wiig kasta aad yarayso marka dambeeto mitir iyo u jirto 2 mitir aadan fogaan ila socota ila waxaan ka wado waxay sugaan Maxamed Cabdullaahi ما كفاية tartiib marka inaan sidaa ugu wado insha Allah arrinkan waa arrin adiga kaa yimi weeye maskaxdiisuna aad u duubtay ayaan haddii ay joogto oo na maqlayso waxbaa ku darsan kartaa maxamed cabdullaahi wax yarsu gabadha su-aasheeda ka dhacnay su-aal muhiima weeye waalidka carruurta yaryarna ay u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaanin waa arrin jira ilmuhu inuu sidaa noqdo mana wanaagsana arrin wanaagsan maaha inkastoy ka go'i doonto 2 sano iyo markuu soo gaaro laakiin waalidkii bay dhib ku tahay qofkii bay dhib ku tahay adiga culays fara badan baa dareemaysaa oo dhinacii hurdadaada iyo waktigaagiya waktigii uu kaa hurdi lahaa baa waxa ku khasban tahay inaad dhinaca jiifto marka waa marxalad aad u adag soo saa maaha ها كيف يعني marka waad fahamtay sidaa samay insha Allah